labaatanka sano soo socota waxa la isdhaafsan doona lacag 100 trillion oo ah lacagtaasi oo ah wadanka Mareykanka soo dadka 90% hantidaasi aad doonto jeebkooda gali doonto waa dadka guryaha iska leh hadaa kiraysato nasiib daro hantidaasi kama qayb qaadan doontid ma noqon doontid dadka hantida isdhaafsanayo falan videogan saabta la sheegare save gareyso fadlan soo follow garee channelkan kor ayaan qaadayna bulshada waxaan soo gudbinaa video noocan oo kale ah sala socotaan stereo manasoro dadka Soomaalida guryaha iska leh waa at least one average waxa lagu qiyaasiyaa inay yihiin 10 to 11%. Numberadaas la ku jabin doona. Boqolkiiba 80 dadkaasi 10 to 11% kaasina waxay guryaha iibsadeen since 2020. Boqolkiiba inta ka soo hadal hadana boqolkiiba 40na waxay ku nool yihiin guryo loo yaqaano Habitat for Humanity. Oo mostly guryahaasi qiimahooda kor uma kacaan nasiib daro waxay leeyihiin wax loo yaqaano affordability guidelines. So hadda ka hadalna hadda stereo manasoro dadka Soomaalida population ku nool waxa ku nool almost $86,000 ba ku nool oo population ahaan ku nool. Laakiin haddaan ku dhufana 10% dadka guryaha iska leh waa 8,600. Masha Allah naslada laga yaabo dad fiican baa so aad u yartan markaas aad u yariyay hadaan ka hadalno stereo manasoro ka hadalno dadka guryaha iska leh an average guryaha ku yaalo waa 2,299,740 guryo ku leh some of them lagu noolo some of them lagu nool yahay some of them investors iska leh it doesn't matter so shaqeyso even though population stereo manasoro uu yahay 5,801,769 uu yahay populationka oo waxaan ku sheegayaa qofka guriga iska leh wuxuu hanti dheer yahay qofkan guri aan lahayn 38 times boqolkiiba 38 jeer ayuu hanti dheer yahay marka loo barbardhigo haddii maanta aan sida real numbers aan ku tuso qofka guriga iska leh net worth-kiisa ama hantidiisa marka la soo duuduubo waa 396,200 markii la kire qofka kireystana hantidiisa kaliya tahay waa 10,400 oo ah 10,400 waxa laga yaabaa in aslada la daayir ciyaartiga daayuutaan ku jira okay ayuutada ma socon doonta oo ku sheegi doonaa okay haddana real example aan ku sii maanta hadda hooyo Soomaaliyeed guriga kireysanay mostly unless they can subsidized housing guri 4 bedroom they kireystaan an average loo kala kireysanaya sa argaysan 2,800 a month loo kireysanaya qofkaasi hadduu shaqo ka shaqeeyo even $15 an hour kama soo qaado waxa ka soo qaaday inuu $20 ku shaqeeyo an hour ku shaqeeyo qofkaasi weekly wuxuu sameeyay 800 sameeya times 4 dhaqdo waa 3,200 sameeya a month waa before tax ya hadduu wax anshuur ka jar ma laha most likely qofkaasi haddii kirada ay noqoto 2,800 maxaa soo haray wuxuu u baahan yahay mostly in uu ku noolaado guri loo yaqaan subsidized housing oo guryaha low income ka section 8 ka una qaato food stamp just do the math adiga samee so qofkaasi the entire page dhan arkayso aan waxbaan ka jarin oo aan ku darin food gas childcare savings waxbaan aan ku darin bal lacagtii qad ka baxday so that means like qofkaasi lacagtiisa boqolkiiba 80 lacagta soo galeysay waxa ku baxaysaa kira ku baxaysaa even hadda in this scenario hadda aan just say 190% oo qofka baadaysa so that dibkeeda leedahay aad u dhib badan tahay saan la socotaan researchka inala socotiin in kala ma garanay laakiin boqolkiiba 24 waa the first time home buyer aha 2023 iyo 2024 hadda still data mo soo baxan 2025 mo dhamaan wali that means 76% dadka guryaha iibsanayay 2023 iyo 2024 investors ahaayeen so basically guriga inay iibsadaan in adeeg ka kareeyaan sanad walba kirada kugu dalacaan waxa kale research kana tusaya haddii aad tahay qof waalid ah guri iibsaday boqolkiiba 80 caruurtaada waxay u badan most likely inay guriga ayagana iibsan doonaan mustaqbalka iibsan doonaan haddaad tahay qof aan qiimeynin lahaanshaha guriga oo aaminsan inuu wadankan meel uga socdo qiyaali waa meel uma socotid waa soo laabanaysa caruurtaada most likely boqolkiiba 90 ayagana ma iibsan doonaan guri sababtoo caruurta adiga ay ku dayanayaan hantidaas aan ku sheegayna boqolka milyan 100 trillion kan ku sheegayna oo la isdhaafsanayana kama qayb qaadanayaan laakiin he's a good news aan ku sheegaya inaa waxaan istaag ahaata ma aha ugu anigu ma lihi guri maanta iibso waxaan ku leeyahay basically fikradaada iyo mindset-kaada bedel meel ugu socoto wadankan wayna guri ka iibsataa home ownership lagu sheegay guri lahaanshihiisana waa sida ugu fudud aad hanti ku sameyn karto waxaan ku siinayaa 3 steps roadmap aad sameyn karto maanta number 1 step 1 waxaad sameysaa nambaradaada waa inaad ogtahay waxaan kula talinayaa inaad at least set budget garaysato guri adiga aad awoodda iibsato ha iibsan guri 700 800,000 900,000 oo xaliimo iibsata ha iibsanin waxaa iibsataa waxa adiga qoyskaada iska bixin kartaan so budgetkada hadduu yahay 2,500 iga badanin gurigaas soo raadi oo 2,500 kaaga badan hadduu yahay 3,000 kaaga badan 3,000 kaaga badan haddana lacag save garayso down payment save garayso lacagtaasi oo guri lagu gabagabeynayo iyo closing cost ayadana oo lacagtaasi oo ayadana kamid noqonayso lacagta guri lagu gabagabeynayo credit card at least waynu hadaa 650 waynu hadaa minimum deemaha lagu leeyahay in aska yareyso adii credit card fara badan leedahay waxaas iska sii yaree step 2 meesha ku noosho ma garanayo hadda ku nooshay another state waxa raadaysaa qof Soomaali oo real estate oo af Soomaali kugu fahansiin kara wixii hadda hooyo Soomaaliyeed hadda abu Soomaaliyeed tahay hadii kale waxa noqonaysaa in laga faa'iideysto ama meel la ku soo dhacdo ama lacag dadka qaar even waxa ku dhacdaa lacagta loo yaqaan honest money ay dhigayaan ay ka burburto taas ay kugu dhaceen hadda manasor ku nooshahay aniga you can book consultation ila samaysan kartaa oo kula fadhiisanaya oo free waayo so then waxaan kugu xidhi doonaa lender kaasina basically loan ka adiga ku fiican adii qoyskiina soo ogaan doonaa haddii Islamic bank ka rabto
exactly waa ku haynaa isagana exactly so then guriga waxay iibsanaysaa without stress waxaa la inaad slide laga yaabo daahir deen ba madax ina ii gelisa rabta maya arrinta maaha that's why another program aan soo sameynay soo sameynay oo ah loo yaqaano the fast mortgage freedom gurigaada waxaan rabaa inaan ku baxso waa third step waxay noqonaysaa gurigaada saad u bixiso 5 sano ilaa 7 sano so that means like hadii ay even ku wareegsantay waxaan aan ka hadlayo leedahay ninkan uu dadku waalay been buu sheegay kusoo biir webinar baan qabanaa kusoo biir webinarkaasi waxa loo yaqaan the fast mortgage freedom waxa aadaysa website-ka inta ka soo fastmortgagefreedom.com email arag list waxaan ka hadlayno macnaha hadii ku sameeyay marka kadib go'aan ka qaado so then 3 steps aan ku sii hadaa sameeyso hadii ay even ku wareersan tahay as leedahay waxaan dhan kuma shaqeynay guriga dhan processes meel laga bilaabo ma garanaysid waxaan qabanaa another webinar oo loo yaqaano sahan realty group oo ah basically aan sameeyno bulshada oo soo barino nidaamka guriga loo iibsanayo process kan from A to Z hadaa rabtana kaasna website kaasna nagu soo biri kartaa aan shashada ka tusi doono insha Allah so that's it way hadii ay dhab ka tahay adiga qoyskaada inaa hanti dhab samaystaan wadankan muhiim way inaa guri ku leedahay adduunka hadan dib kugu laabto ifan aan ka baxo guri iibsidiisa ka laabto there is no even business oo caalamka shaqeeyo oo real estate aan lahayn oo hantidiisa ugu weyn ee real estate ahayn literally mail will be even go for example I do like Amazon FBA wax la sameeyaa oo product online lagu iibinayo meelaha qaar baan sameeyaa dadku kan sameeyayo kala hadda aan sameeyayo kale there's me and my friend sameeyaa mostly asaga gurigiisa aad u weyn so mashallah so storage the whole storage hoos ku leedahay oo sameeyaa so product-kaas la iibinayo Amazon FBA lagu sameeyaa la iibinayo wuxuu baahay real estate hadii maanta maqaayad furanayso even coffee shop furanayso real estate u baahan yahay hadii like Amazon oo kale hadda for example at a big company oo kale warehouse oo baahan tahay so there's no way adduunka caalamka real estate waa muhiim there's no way qof successful ku noqon doono without real estate waxa ugu muhiimsan waa basic foundation oo gurigaada qoyskaada meesha ku nooshahay caruurtaada meesha ka soo kacayaan aad ay muhiim u tahay sababtoo ah caruurta isku han ma noqdaan caruurta low income lagu koriyo iyo caruurta guriga ku soo kaco literally isku nool ma noqdaan even nolosha hadaf qofka hankiisa iyo meesha uu higsanaya laba kala noqonayaan qofna meel saru higsanaya midna the next wuxuu noqonayaa caruurtada ku daawanayaan wada socdo waysan ku dhaho qof kale uu garanay ma adduunka ku imaado qofkan adun buu ku garanaya qofku higsanaya adiga hadda adiga noloshaada in liidaa rabto hankaadu ku rahayn then most likely caruurta adiga kale noqonayaan nasiib darro waxaan waa even wala iska dhaxlaa hawlaha noocaas oo kale insha Allah nasoo follow garee asxaabta la sheegay videogan way salaamaya assalamu alaykum